waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo xogtii dunida fadlan subscribe like iyo share noo saar qodobadan inagu hayno waxa kamid ah madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Germany Olaf Scholz soo dhaweyntan ayaa waxay noqonaysaa booqasho rasmi ah oo ku yimid dalkaasi waana markii ugu horeysay tan iyo dhamaadkii sanadkii 2021 markii uu xilka qabtay 8 December uu soo baxo dalka Jarmalka meel ka baxsan booqashada Turkiga oo ku yimid ayaa waxay muujinaysaa ahmiyadda ballaaran ee Turkiga u leeyahay wadamadan reer galbeedka dhanka kale madaxweynaha Turkiga ayaa si heer maqaam sare ugu soo dhaweeyay qasrigiisa isla markaana waxaa loo tumay heesta calanka Jarmalka iyo kan calanka Turkiga ayagoo cutubyo kamid ah ciidamada gaarka ah ee qasriga madaxtooyada Turkiga ay salaan sharaf si heer maqaam sare ugu saareen ra'iisul wasaaraha dalka Germany taasoo loo soo galbiyay qaybta hoose ee qasriga isla markaana uu kula kulmay wafuud sare oo ka tirsan wasiirada dalka Turkiga iyagoo mid walba gacan qaaday la barayayna magaciisa soo dhaweyntan iyo iskaashigan ayaa waxay ka dhigan tahay xiriirka si ballaaranaya ee labada dal iyo ahmiyadda dalka Turkiga uu ku sii yeelanayo caalamka intiisa kale gaar ahaan waxaa jira Jarmalka inay ku nool yihiin bulsho aad u ballaaran oo reer Turkiga ah taasoo ahmiyad siinaysa dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa goor dhaweed ku dhawaaqday oo ga digtay China inay wax dhaqaale caawimaad u fidiyaan dalka Ruushka ayay uga digeen cawaaqib xumo in lagala kulmi doono haddii China isku dayo in uu gargaar military iyo mid dhaqaale labadaba u fidiyo iyadoo aysan jirin wax baahi ah haddii ay jiraan baahi dheeri ah waxa weeyaan waxa laga wada tashan doona ay hadal ku tiraafayeen aqalka cad dhanka kalena waxa wali socdo duqeymaha sida arxan darrada ay Ruushyaanku ugu wadaan dalkaasi Ukraine iyadoo ay caasimadda Kiev hoy u noqotay madaaficida iyo sawaariikhda iyo gantaalaha ku soo dhacaya taasoo ilbiriqsi walbaba ama saacad walbaba la filayo meel hor la inay burburto walow wada xaajoodkii ka socday dalka Turkiga uusan miro dhalin haddana wali rajada lagama quusanayo dadaal badan ayaa jiro dalka Russia ayaa waxay la wareegtay magaalooyin xeebaha ku yaal gaar ahaan dekada ganacsiga ee dalkaasi iyagoo magaaladan urinaysa ay hareereeyeen Ruushyaanka ayaa waxay xoog saarayaan kadib cunaqabatayn si aad u sareysa markii ay ku soo rogeen wadamada reer galbeedka si ay uga badbaadi lahayd isla markaana u soo afjeer lahayd colaadaha iyadoo ku dadaalayso isuguna yeertay ciidamadeedii kaydka ahaa muddo gaaban gudahood inay ku soo afjarta maamulka dalkaasi Ukraine taasi ayaan la hubin inay dhici doonto in kale walow khasaaro uu sii badanay iyo burburka iyo baaxadda dhanka kalena calooshadu shaqaystayaal Ruushyaanku ay ka keeneen bariga dhexe ayay ku soo daabulayaan wadankaasi halka aad nagala socotaan waa xogta dunida fadlan subscribe noo saara